xasuuqa ahay oo loo geystay dhallinyaradii Soomaaliyeed inaan ka tacsiyeyno si tiraanyale yaan u nimid dadkaas Ilaahay waxaan uga baryaynaa jannadii firdawsi inuu ku waraabiyo. intaa kadib dadku waa qabiilo dawladda iyadu 4.5 bay ku dhisan tahay dadkaanu qabiil bay ka dhamaadeen dadkan in loo si la garan karo loogu tacsiyeeyaa la rabaa anoo ku hadlahayo qabiilka aan ahay magaciisa beesha sade macal madaxweynuhu ku jiro waxaan ka tacsiyeynayaa si tiraanyale geeridii halkaa ka dhacday iyo dadkii ay ka dhamaadeen Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo waana wax in laga garaabo mudan loona baahnaa in mar hore laga garaabo qaranku inuu wax badbaadiyo qaran u yahay waad ogtihiin markaan ku hadlahayo magaca beesha sade madaxweynuhu inuu yiri anigu qabiil ma ahi laakiin ma noqon karto been buu sheegaya waa qabiil waa barreexaan weyn ma ka baxahay waa marreexaan anigu ugaaskiisi baan ahay anoo afkiisa ku hadlahayo waxaan u tacsiyeynayaa beesha dhibkaan gaaray oo habarkidir waana laga gardarnaa kii shalay dhacay oo u dambeeyeyna dilka lagu waday Cabdi Qaydiid qalad buu ahaa mu'ayid dawladeed buu ahaa maxaa lagu dilahayaa muxuu galabsadaa ciidan tuuta qabo in min masaatira gurigiisa ay weeraraan wax laga qanci kara ma aha Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur waa shakhsi inta warqad loo geeyaa ima wala dhihi karaa habar gidirna ma ay fileen dawlad marreexan madax ka yahay baa saa noqonaysaa inaysan dhacayno meesha laba waa ogey waxa idinku dhacay waa idinkaga tacsiyeynayaa anoo ku hadlahayo ugaaska magaciisa kan madaxweynaha kan meel u joogo oo magaca marreexan mid ka daarood dhammaan anaa ka tacsiyeynayo saakaas gooy ku hadlahayo waadna samirteen waan la idinka kileynhayaa waxa la idinka ururinhaya ma aqaano waxa aad gasheen oo la idinka ururinhaya anigu ma garanayo isrotayda ku dhex daadato ilaa xalna waa samirteen habarkii dawlad ma rabto habarkii inta si walba loo laayo soo shib ma ah dawlad inay rabto soo ma cadaanin dawladda ama war baan ka keenaynaa ama anoo wada jiix la diriraynaa wassalaamu calaykum